السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتكم حرن جنال كمركل السود وده أدعو سند أيا كسو وريكتي مركي مدحوين ترامب حلك اللو داريي هذا ما أنت شر جرائد أقل كعد أيو كسو مغضي وحنا أو كجه الله وحقبت كيسة يسقو سدو كلنا صوبان دقي قار كمدة صوردي أي عدا مدى آيس دتكي أي كسو قبقبتها مقالة مينيابوليس يولي بمقالة كلا سين بول أو كتل مامي دلايال كفصديال يكوا in daroogada ka ganacsado inay isugu jiraan arrimahaasi waan idin la wadaagaya wasiirka amniga gudaha Mareykanka Kristen Noem oo iyaduna sheegtay tirada dadka dambiilayaasha sharci darrada ah oo ay ka soo qabteen gobolka Minnesota ama iyo sidoo kalena 6 toddobaad ay ugu dambeysay maxay dhan tiradu guud ahaan dadka ay soo qabteenna maxay dhan waan idin la wadaagaya sidoo kalena goobta ciidamada dadku ay ku xiraan xabsiga weyn oo ay geeyaan dadka markii ay qabtaan oo ku yaala gobolka Texas oo la sheegayo ilaa iyo hadda 2 qof inay ku dhinteen maalmihii la soo dhaafay ama 2 toddobaad ee la soo dhaafay dadkaasina maxay yihiin sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaad gudaha Mareykanka Kristen Noem ayaa waxa ay shalay sheegtay in tirada dadka ay ka soo qabteen magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis ee dadka dambiilayaasha ee sharci la'aanta ay aad u fara badan yihiin shalay sidoo kale waxa soo baxday xabsiyada ku yaala gobolka Minnesota sharci waxa jira qofku markuu xabsigiisa dhameysto hadii uu sharci la'aan yahay marka uu xabsigiisa dhameysanayo in ciidamada ICE lagu wargeliyo oo ciidamada ICE ay qabtaan isla markaana ay halkaasi ka wataan marka waxay xaqiijisay in ilaa iyo 10,000 oo dad dambiilayaal sharci darro ah ay ka soo qabteen magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis waxayna sheegtay dadkaasi dadka Mareykanka inay dilayeen caruurta inay dhaawacayeen qalqalna ay ku hayeen ammaanka magaalada Minneapolis marka waxa ay tiri nabadgelyo iyo deganaasho iyo waliba ammaan ay dadweynaha Minneapolis helayaan ayaa hadda dhacaya sida iyadu hadalka u dhigtay marka 6 toddobaad ay u dambeysay ilaa iyo howlgalkii Metro Surge markii uu bilaabmay waxay xaqiijisay 3,000 inay ka soo qabteen magaalooyinkaasi 6 toddobaad ee u dambeysay laakiin guud ahaan intii howlgalku uu socday waxay leedahay 10,000 ay gaarayaan dadka aan ka soo qabanay haddaba madaxweyne Trump maadaama maanta sanad guuradiisii koobaad ay ku beegan tahay markii xilka uu la wareegay oo 20 January ee sanadkii 2025 ahayd aqalka cad shirka jaraa'id oo maalinlaha oo hafayeenka aqalka cad ay qabato Caroline Levitt ayaa maanta isagu uu ka soo muuqday isaga ayaa shirka jaraa'id qabanayay halkaasina wariyaashu ay su'aalo ku weydiinayeen waxa uu yimid isagoo buug weyn wata waxana uu yiri buugan waxa ku qoran waxqabadkeena halka sano marka wariyaasha ayaa la siin doonaa uu la wadaagi doonaa kulli waan siin doonaa ayuu yiri marka waxa uu yiri ma jiro inta aan qabanay hal sano gudaheed maamul iga horeeyay oo xilkan soo qabtay oo qabtay waa sida isagu uu sheegayo Trumpna waan ognahay waa nin faanka jecel marka waxa uu yiri dagaalo fara badan ayaan joojinay waxyaabo kala duwanna wadankeena waan u qabanay marka buugan ayay waxyaabahaasi oo idil ku jiraan bal Trump oo intaasi ka hadlaya waxa uu yiri These are accomplishments. We have a lot of accomplishments and as you know this is the anniversary, first anniversary, January 20th, and it's been an amazing period of time. We have a book that I'm not going to read to you, but these are the accomplishments of what we've produced. All page after page after page, individual things. I could stand here and read it for a week and we wouldn't be finished, but we've done more than any other administration has done by far. In terms of military, in terms of ending wars, in terms of completing wars. Nobody's really seen very much like it. dhinaca kale madaxweyne Trump waxa uu soo hadal qaaday howlgallada ciidamada ICE ay ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis waxaan ognahay 3,000 oo ciidamada ICE iyo kuwa xuduudaha in howlgallo ballaaran ay ilaa iyo horaantii bishan amaba December bilowgeedii bishii 12aad ee sanadkii hore ay howlgalladaasi ay wadeen marka Trump waxa uu soo qaatay sawirro aad u fara badan uu leeyahay waa dadkii dambiilayaasha oo ka soo qabanay gobolka Minnesota waxa uu yiri dadkan waxay isugu jireen kuwa dambiilayaal ah kuwa sidoo kalena daroogada ka ganacsada iyo kuwa waalanba oo maskax ahaanba aan fiyoobeen waxana uu yiri arintan waxaan ka dhaxalnay maamulkii ugu horeeyay Biden sidoo uu la jeedo oo xuduudaha iska furay isla markaana dadkii xabsiyada waalida inay ka soo baxeen isbitaaladii waalida iyo xabsiyadii ay wadankeena iska soo galeen marka waxa uu sheegay dadkaasi ayaa waxay yihiin kuwa inagu aan dabagalka ku hayno dhinaca kalena waxaan ognahay dad badan oo muwaadiniin Mareykan ah in dhibaato loo geystay oo qaarkood la xiray kuwa hadda waxa soo baxaya xitaa in qareen loo diiday dadka markii la xiro
qofku waxa uu xaq u leeyahay in loo ogolaado qareen qofkaasina uu difaaco marka hadda wararka soo baxaya waxay sheegayaan ICE dadkii xitaa inay u diidayaan in qareen ay qabsadaan marka ay xiraan arrintaasi oo sharci darro ah marka madaxweyne Trump oo sawiradaasi soo bandhigay isla markaana shirka jaraa'id oo aqalka cad maanta uu ku qabtay ka hadlayay waxa hadaladiisii kamid ahaa they're apprehending murderers and drug dealers and a lot of bad people and these are just some of the more recent ones that we have and I can show you some of the people vicious many of them murderers. These are all out of Minnesota, just Minnesota. I say, why don't you talk about that more? Because people don't know. Do you want to live with these people? International murder. These are people that are living, they're apprehended and either put in jails in their country from where they came, and the countries respect us, and so they actually put them there. In the old days, they didn't respect our country. Biden wouldn't do this because he let them all in. You know, if you didn't have open border policies of Biden, none of this, all of the things that all of the time that we spend talking about Minnesota and everything else, most of them are coming from out of the country. And it's been caused by a previous administration. Look at this, one after one. These are all criminal, illegal aliens that in many cases, they're murderers, they're drug lords, drug dealers, they're the mentally insane. There's some of them who are brutal killers, they're mentally insane. They're killers, but they're... dhinaca kale waxaa jira laba xabsi oo waaweyn oo ciidamada ICE ay u qaadaan dadka marka ay qabtaan waxay ku kala yaalaan Texas iyo Louisiana hadda wararka soo baxaya waxay sheegayaan in xabsiga ugu weyn oo ku yaala gobolka Texas isla markaana El Paso Texas ku yaala in uu ku geeriyooday nin u dhashay wadanka Nicaragua ninkan waxa la leeyahay labadii toddobaad ee la soo dhaafay ilaa iyo 2 qof ayaa xabsigaasi ku geeriyootay ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Victor Manuel Diaz waa 36 jir wadanka Nicaragua ayuuna ka yimid qolkiisii uu ku jiray xabsiga ayaa la arkay isagoo aan neefsanaynin waxaana la yiraahdaa xeradaasi Camp East Montana ayaa la yiraahdaa El Paso Texas ayay ku taala marka ICE waxay xaqiijisay oo iyagu ay leeyihiin waxaan u maleynaynaa qofkan in isagu uu isdilay laakiin baaritaan ayaa lagu sameeynaya qolkiisa ayaana lagu arkay ninkan oo isagoo aan neefsanaynin sida darteed Diaz waxa la leeyahay 6 January ayaa ciidamada ICE mararka qaamalaha qaarna 12 January ayaa ICE waxay ka qabteen Minneapolis ninkan wadanka sharci darro ayuu ku soo galay bishii March ee sanadkii 2024 xuduudda dhinaca Mexico ayuu ka soo galay bishii Agosto ee 8 isla sanadkaasi 2024 ayaana parole la soo siiyay marka ninkaasi waxa la leeyahay xabsigaasi ayuu ku geeriyooday marka sanadkii la soo dhaafay 32 qof ayaa xabsiyada ICE ku geeriyootay hadda oo January ee maanta 20 tahayna waxa la leeyahay 5 qof ayaa xabsiyada ICE ku dhimatay markii ay xireen kadib waxa jira sidoo kale nin kale oo isagana magaciisa la yiraahdo Geraldo Lunas Campos oo 55 jir ah oo wadanka Cuba ka yimid isagana 3 bishan January ayaa waxa la leeyahay xaalad caafimaad ayaa la soo gudboonaatay kadibna ciidamada ICE waxay sheegeen in gurmad degdeg ay u fidiyeen oo ay doonayeen naftiisa inay ku badbaadiyaan laakiin ninkan in la dilay ayay u muuqataa sidii ninkii George Floyd ahaa ninkan 5 kamida ciidamada ilaaliya xeradaasi ciidamada ICE ay maamulaan ayaa waxay kaga istaageen qoorta iyo xabadka marka wuu neef qabatimay sida muuqata sidaas darteed ayuuna u geeriyooday nin kale oo la xaqol u dhow ku xirnaa oo magaciisa isagana lagu sheegay Santos Jesus Flores ayaa waxa uu sheegay in uu maqlayay ninkaasi oo luqadda Isbaanishka ah ku qaylinaya isla markaana dhahaya ma neefsan karo marka Washington Post ayaa ninkan marqaatiga waxa uu sheegay in ninkaasi la ceejiyay oo shantaasi ilaalada xabsiga ay ceejiyeen kadibna waxa uu sheegay in uu luqadda Isbaanishka maqlayay isagoo ku qaylanayo ma neefsan karo ilaa iyo markii dambe uu dhawaqiisa waayo oo ninkaasi uu aamusay marka sida muuqata markii muddo 5 nin oo ka xoog badan hadii qaarna qoorta ay kaaga istaagaan qaarna xabadka ay kaaga istaagaan macnaheedu waxay tahay inaan neef qabatimayso kadibna ay naftu ay ka baxayso marka hadda waxa la leeyahay ninkaasi baaritaanka lagu sameynayo waxay tahay in la dilay inay u muuqato baaritaan dil ah in lagu sameynayo ciidamada ICE waxay leeyihiin
ninkaasi isagana neefta ayaa ku xirantay sidaasi ayuuna u geeriyooday marka hadda waxaaba soo baxaysaba xabsiyadii ICE in dadku ay ku geeriyoonayaan qaarkoodna sida muuqata dirdil ama dhibaato loo geystay darteed ay ugu geeriyoonayaan marka waana jiri kartaa dad kale oo badan in ay jiraan oo la qarinayo maadaama hadda leeyahay 32 qof ayaa sanadkii hore ay ku geeriyootay xabsiyada ICE marka haddii warbixino kale oo dheeraada ay soo kordhaan haddii alla idmo waan idinla wadaagi doonaa marka wararkii ugu dambeeyey ayay muujinayaan labadii toddobaad oo lasoo dhaafay labadaasi qof xabsiga ICE ay ku leedahay gobolka Texas ay ku geeriyoodeen waa xabsiga hadda dadka Soomaalida oo xitaa I-94 kale oo wadanka sharciga ku yimid marka la qabto halka laga tuurayo waa goobtaasi waana laba goobood oo waaweyn oo mid Texas ku taala iyo mid Louisiana ku taala oo dadka la geeyo marka ciidamada ICE ay qabtaan oo gobolka ay ka qabteen muddo saacado ama maalmo yar ay ku hayaan kadibna xabsiyadaasi waaweyn la geeyo si halkaasi ama looga masaafuriyo haddii markaasi qofkaasi qareen loo qabto uusan dambi lahayna in markaasi kadibna la soo daayo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi la sida iyo nabadgelyo